بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادا كليب كان وحنسكت ديتو إن شاء الله يوم كشف لنا ما أنت برولون كان برولون كان وحنا ليه واحد صوص هرتا find the ultimate moment capacity of this beam واحد صوص هرتا moment كا وبيم كاني كلا شبيه بيم بدل نسيي بيم كاسة واحد ليري واحد صوص هرتا moment كمر كلا صاروا وبيم كاسة كلا شبيه the ultimate moment capacity of this beam حال نسيي واحد نسيي ده مش نسكي قولها بيم كاني B 8 inch iyo D oo ah markaas maxay 20 inch waxa kale oo nalisiiyay FC iyo FY FC FY isla taago FC maxay tahay FY maxay tahay FC waxay tahay wax soo qaadatay adduunka kule concrete kaagi waxa ku dartay ciidii waxa ku dartay sawirkii dabeeto waa samaysay waxa sugtay 28 cisho tilaa cisho kadib markuu strangaskiisa loogu baahnaa uu gaaray ba soo qaaday xageed gelisay mashiinkii bay dhex gelisay dabeetana xoogkii markaasi compression ka ah ku sii deysay compression ka xoogga uu ku jabo ayaa waxa la dhahaa FC the ultimate compression capacity of the beam of the waxa la dhahaa concrete waa adduunka ku yahay compression ka u dambeeya ee aanu qaadi karayn ee marka la geliyo uu jabayo concrete kaagu ayaa waxa la dhahaa markaas maxay FC baa okay bas la taranta FY maxay tahay FY waxay tahay waa same laakiin iyadu waxay la garanaysaa ee ku tacaluqda steel ama grade soo qaaday wad kala jiiday xoogga marka geliso uu ugu dambeeyo ee uu kala go'ayo ayaa waxa la dhahaa maxay isagana FY baa la dhahaa ama ultimate tensile strength barada okay inta la garanay waxa kale oo aynu garanaysaa meesha la siiyay and 3 number 11 labada number meesha maxay yihiin 3 gan wuxuu sheegayaa tirada hore waxay sheegaysaa inta number ee grade in meesha gelisay meesha waxaan geliyay marka maxay 3 baan geliyay marka maxaa ku qoran 3 hadii aan 5 gelin lahaa halkaas maxay noqon lahayd 5 baan noqon lahayd hadii aan 6 gelin lahaa halkaas maxay noqon lahayd 6 baan noqon lahayd kolba inta grade geliyo bay tirada hore ii sheegaysaa okay tirada maxay sheegaysaa tirada waxay sheegaysaa magaca la dhaho grade suuqa waxa yaala grade kala duwan marka gradedaas waxa la kala dhahaa magacyo loo kala bixiyo 11 12 3 4 5 mid kasta wuxuu leeyahay diameter u gaara iyo area u gaara marka maanta inagu waxaan isticmaalaynaa 11 waxaana markanaysaa laga eega oo la siinaya numberskan magacyadan adduunka ku yahay steelka iyo diameterskooda iyo areadooda waxaan ka eegaynaa tableka ACI-ga ee markaas dadka Mareykanka laga leeyahay وانا كان حاجه maxaa ku qoran aduu ilaahay ku yahay bar numberkiiba ku qoran number 3 number 4 number 5 waa baris la garanayo oo bakhaarka suuqa yaala kuwana waa maxay waa diameterskoodii kuwana waa maxay waa areadoodii marka waa magacyo isla garanayo weeyaan okay tan kan baando maxay kale inta san leeyahay marka maxaa laga rabaa in soo saarno momentka marka la geliyo beamka uu beamka kala jabayo waxa la leeyahay halkani oo cross sectionki beamka weeyaan maaha beamka oo dhameystiran beamkii aan soo qabanay dhexdeena ka jarnay dabeetana waxa soo qaadanay markaas maxay concessionkiisa halkan mar walba waxaan oran doonaa B bay oran doonaa halkan mar walba halkan mar walba waxaan oran doonaa markaas maxay D waa maxay D waxa weeyaan distance-ka u dhaxaysa centerka markaas ilaa iyo ficta sare markaas concrete ayaa waxa la dhahaa markaas maxay D baa la dhahaa intan yar soo hadhin waxa la dhahaa markaas maxay xaggan yar ilaa xaggan waxa la dhahaa maxay CC baa la dhahaa ama clear cover baa la dhahaa okay intaas waa inta aan iska bilaabo problemkan marka ugu horeysa waxaan sawiraynaa oo muhiim ah inaan sawirno si barnaamijka ugu shaqeyno strain-ka uu leeyahay markaas maxay beamka leeyahay okay aan sawirno okay waxaan sawirnay strain-keena waan sawirnay diagram-kii strain-ku lahaa okay strain-ka waxa jirta halkan markaad soo qaadato concessionka beamkaaga adduunka kule wixii halkan ka sareeya wuxuu qaadanaya concrete-kaagu maxay compression buu qaadanaya wixii halkan ka hooseeyana wuxuu qaadanaya markaas maxay tensile buu qaadanaya ama markaas maxay xoogga tension-ka ayuu iska xijinaya okay marka halkan ilaa iyo halka waxaan u bixinaynaa C halkan waxa weeyaan halka yare bartanku waxa weeyaan maxay waxa la markaas maxay neutral axis baa meeshii markaas maxay neutral ka okay neutral wixii dhanka ugu rogmada ee ka sareeya waxay ka mas'uul tahay compression baa marka ku dhacaya wixii ka hooseeyana waxa ku dhacaya marka tensile baa ku dhacaya ama xoogga markaas kritika ku dhacaya okay halka ilaa halka waxaan u bixinaynaa markaas maxay C baan u bixinaynaa okay strain marka sawirto halkan waxa yaala halkan maxaa waxa weeyaan halkan aad taagno waxa dhahaa sublin markaas maxay u leeyahay markaas maxay strain u leeyahay concrete u leeyahay waa 0.003 oo marka maadaama xaggan sare ay ka mas'uul tahay compressionka waxa soo qaadatay concrete-kii waad cadaadin strain maxaa dhahaa strain waxa dhahaa marka walaxdu ay kala baxdo ama ay yaraato salaamo kale walax baad haysataa waxaad ku apply gareysay xoog markaad xoog ku apply gareysay maxay dhacaya way dicsanaysaa dicsinka ay dicsantay ayaa waxa la dhahaa markaas maxay strain baa la dhahaa walax baad markii hore haysatay ama tusaale kale walax markii hore haysatay waad kala jiiday markii hore waxay tusaale kale 4 mitir bay 4 mitir iyadoo ku ah ayaad maxay ayaa ku samaysay kala jiid waad kala jiiday
waxay noqotay 4 mitir iyo waxoogaa bay noqotay waxoogaagaas muxuu noqonayaa stream buu noqonayaa walax la soo qaaday waxay ku ahayd 4 mitir bay ku ahayd waad calaadisay mar labaad 4 mitir iyadoo ku ah ayaa markaa calaadisay maxay noqotay 3 mitir iyo waxoogaa bay noqotay intaa yar ee ka jarantay ayaa waxaa la markaas maxay stream baa la marka concrete-ka marka compression-ka la geliyo la calaadiyo waxaa jira ultimate strain wax loo yaqaano ama markaas maxay diisinka u dambeeya ee aanu dhaafi kareyn concrete markaa inta ugu dambaysa ee aanu dhaafi kareyn waxa weeyaan 0.003 marka soo qaato concrete-kaagii ee calaadisay uu yaraanaya yaraanshaha uu yaraaday intaa hoos u dhacay ayaa waxay tahay maxay 0.003 waa markaa in la isla garanayo oo standard easy okay waana maxay halka ilaa iyo halka marka hore waad cadaadisay u badanaya mar walba cadaadiso waxa badanaya diicsiga u yaraa marka dambe maxay ay gaadho meel aanay dhaafi kareyn hadaba markii aad ka soo qaadso waan kala 4 meel ku hayd idoo 4 mitir ku ahayd ayaa maxaa ka go'aya 0.0003 maxaa noqonaysaa 3 something noqonaysaa marka waa ultimate strain ama diicsiga u dambeeya ama gaabitaanka ay walaxdu gaabato inta u dambaysa ee ka go'i kara ayaa waxay tahay 0.003 waa soo garnaa halka okay halkanna waxa ku dhacaya strain-ka marka uu lahaa steel-kana meesha gelisay strain ku dhacay okay marka isagana waxa weeyaan waa muhiim okay halka waxa ku dhaafina marka maxay strain-kii markaasi beam-keena waxaanu markaa hadana sawiraynaa stress diagram-ka uu leeyahay markaas maxay beam-keenu leeyahay okay ana sawirno okay hadda halkan waxaan ku sawirnay markaasi stress diagram-ka markaasi uu lahaa beam-keenu lahaa ayaan sawirnay okay stress diagram-kan sawir markaasi kan waa stress diagram-kii weeyaan kanna waa strain diagram-kii okay stress diagram-kan wuxuu noqonayaa zero noqonaya marka waxaanu haysanaa 0.85 fc xoog ah oo ku dhacaya markaasi maxay block intan yar ee markaasi areas-ka waxa la dhahaa block baa la dhahaa marka waxa weeyaan waxay soo martay derivation fara badan waana markaasi sida tan oo kale ay waxay tahay marka standard beta oo wax standard oo isbedeleen 0.85 fc oo ahayd markaasi maxay ultimate compression strength-kii beam-kaaga ee wax u dhufanaysa 0.85 marka waa block inta waa in markaas garanay okay waxaan doonayaa marka xaggan ilaa iyo xaggan waxa la dhahaa fiirso waxaan marka oranayaa fiirso halka xaggan ilaa iyo xagga waxa la dhahaa markaas maxay e baa la dhahaa waa inta markaasi uu ku dhacayo block-kan uu yahay samahaantana 0.85 fc gani uu ku dhacayo ayaa la dhahaa markaas maxay e baa la dhahaa marka okay inta bartankeeda oo ku dhacayo markaasi maxay ku dhacayo markaasi maxay kan waa distributor load weyn waa xoog markaasi maxay aan point load ahayn marka waxaan rabaa marka inaan u bedelno 0.85 fc gan ma garanaysaa distributor-ka waxaan u bedelaynaa xoog markaasi point load oo markaasi hala marka xoogga halka ama waxa loo yaqaanaa resultant force-kaasi wuxuu ku dhacaya markaasi maxay bartanka xaggan iyo xaggan hadday tahay e muxuu ku dhacaya marka haddii lahay kuro yahay muxuu ku dhacaya markaasi maxay compression-ka haddii lahay kuro yahay waxa weeye markaasi maxay waa compression-kii weeyaan xooggan ma garanaysaa distributor load-ka ah ayaa wuxuu yahay tusaalahaan kale waa sidan oo kale xaggana beam baa yaalla xaggana saas ku dhacaya marka waa xoog markaasi maxay distributor load beam-ka gebiisa ku dhacaya marka waa saas oo kale xaggana waxa yaalla markaasi maxay 0.85 fc baa yaalla okay marka muxuu ku dhacaya halkan ilaa iyo halkan oo ay marka kan iyo kani waa same waxaan samayn jirtay markaan doonayno inaanu distributor load u bedelo point load ama xoog kaliya inaan u bedelo waxaan samayn jirnay xoog laftarkiisa oo kana ayaan maxaa ku dhufan jirnay haddii ilaahay ku rooyahay linkaska oo markaa ku dhacayo markaa maadaama uu kan yahay 0.85 fc wuxuu ku dhacaya markaasi maxay a markaa kan wuxuu noqonaya markaasi maxay 0.85 lagu dhuftay markaasi maxay a lagu dhuftay okay taasi waa taa marka oo compression wuxuu ku dhacaya markaa wuxuu ku dhaci jiray markaasi maxay xagee experiment maxay noqonaysaa markaa waxay noqonaysaa eedan oo loo qeybi maxay laba way rectangular okay so waxay noqonaysaa xaggani waxay noqonaysaa halkani maxay waxay noqonaysaa a by 2 bay noqonaysaa okay maxay noqonaysaa halkani a by 2 bay noqonaysaa okay xaggan ilaa iyo xaggana maxaan ku soo sheegnay d inay tahay okay xaggan ilaa iyo xagga laga soo bilaabo maxay ahayd steel-ka ama grade-keena ilaa iyo xagga ku sarreysay ee markaas concrete-keena waxay ahayd markaasi maxay d bay ahayd dimension d halkan oo ahayd markaasi maxay meesha neutral-ka ah ilaa iyo xagga ku sarreysana maxay ahayd steel soo sheegay marka xarfahaas waa very very important waa muhiim
inaad xifdido oo markaasi maxay maskaxdaada ku jiraan waxaan sameeynaa marka xaggana maxaa ku dhacay xagga hadda ku dhacay compression xaggana maxaa ku dhacay xagga waxa ku dhacaya waxaan haystaa halkan waxaan haystaa markaasi maxay birihi baan haystaa Soomaa birihi waxaan u geliyay biraha si markaa maxay u qaabilo ama uu markaasi iskaga caabiyo xoogga kaga imanaya tensile-ka macnaheedu concrete-ka sida caadiga ah wuxuu daciif ku yahay oo weak ku yahay tensile ma qaadi karo wuxuu qaadi karaa kaliya compression marka si aynu u burburin waxaanu gelinay birahan gelinay marka steelkan marka steelkan maxay noqonaysaa marka adduunhay ku yahay tensile strength ama tensile force muxuu noqonayaa T wuxuu dhacaya marka force bartan ku dhacay halka dukaas compression bartan ku dhacay tensile wuxuu ku dhacaya markaas maxay bartaas ku dhacaya marka waa tensile kii weyn xoogii tensile ka weyn ee uu qaadayay markaas maxay ay biraha si qaadayay okay xoogga tensile ka ah waxaan ku helayaa qaacida ku wuxuu noqonayaa area of the steel kan laftarkiisa area uu leeyahay oo ah area of steel ayaa wax ku dhufanaya markaas maxay Fy oo ahayd ultimate strength-ka ama awoodda ugu badan ee ay qaadi karto birtu qaadi karto oo ahayd 50 KSI hadda ma garato kaas muxuu noqonayaa marka tensile adduunhay ku strength-ka noqonaya compression kana maxaan ku sheegaya waxaan haysanaa 0.85 lagu dhuftay markaas maxay A lagu dhuftay iyo maxay kale B because of waxaan haysanaa compression baan haysanaa waxa ku dhufanay markaas maxay waxa lagu leeyahay compression isagana C waxaan ku yeerayaa okay area maxay ahayd samaha A area waxay ahayd B times waxaan noqonaysaa 0.85 FC oo lagu dhuftay markaas maxay area beamkayga oo ah Adan oo lagu dhuftay markaas maxay B lagu dhuftay marka so waxaan haystaa markaas maxay 0.85 FC times maxay A times B okay aan ka socono inta markaan sheegno waxaan doonaynaa kaliya inaan sheegno distance maxay noqon markaa distance u dhaxeeya labada force xaggan ilaa iyo xaggaas maxay noqonaysaa okay horta marka waxaan sheegay in laga soo bilaabo xaggan xagga ay figta sare ilaa iyo xaggan inay tahay markaas maxay tahay D tahay okay hadii xagga ilaa xaggaas D tahay xaggan ilaa iyo xaggan maxay noqonaysaa waxa noqonaysaa xagga ilaa xaggaas waxa leeyahay markaas maxay D oo halkan ilaa halkaas oo guud ahaaneed macnaheedu halka ilaa halkaas waxa D Soomaa D oo laga jiray markaas maxay A by 2 intan yar A by 2 oo waxaya intan yar marka maxay soo baxaysaa intan soo baxaysaa halkan ilaa iyo halkan soo baxaysaa marka imika waxaan haystaa distance ka u dhaxeeya compression kayga iyo tension kayga waa halkan compression kayga waa xaggan distance ka u dhaxeysana waxa noqonaya markaas maxay D minus A by 2 noqonaysa waxaan oranayaa summation of f of x should be 0 xoogayga ku dhacaya qolkan ku dhacaya ee markaas maxay ee markaas horizontal-ka ah ee macnaheedu sida chief-ka ku dhacaya ayaan rabaa markaas inta soo geeyo inaan ka dhigo markaas maxay 0 okay imise xoog baan haystaa oo ku dhacaya beamkayga waxaan haystaa kan oo tensile-ka ah iyo kan compression-ka labadaas haystaa kaliya okay marka waxaan oranayaa summation f of x equals 0 waxaan haystaa kan waxa ka tagay oo socda markaas maxay bidix u socda marka bidix waxaan ka dhiganayaa negative soo waxaan noqonayaa minus 0.85 fc prime oo lagu dhuftay A oo lagu dhuftay B equals waxa leeyahay marka equals ma oranayaa halka oo markaas maxay loo geeyay plus kan waa mid buu jeedaa marka plus oo loo geeyay intan oo maxay area of steel oo markaas maxay lagu dhuftay Fy okay maxaan soo sameeynaa sidana waxaan u sameeynaa ujeedada ay tahay markaas inaan la soo baxo A waayo ma garanayo A intan halkan ilaa halkan inta ilaa tahay ma garanayo waana very important waxa ku xiran inaan soo saaro ultimate moment kayga oo ah kala weydiiyay marka hadda soo saaro eeda waa soo saar kaliya zero foot markaas ultimate magaranaysa moment kayga aan si wada marka intaas si wado isku badbadel waxa noqonaysa markaas maxay waxaan doonayaa ka dhigo subtractive formula inaan ka dhigo maxay inaan ka dhigo eedada so A waxa ilaa taman oranaya wareejka kan noqonaya okay inta markaan magaranaysa soo saaro A soo saaro waxa noqonaysa markaas maxay inta noqonaysa kana wareejiyay caadi kind of like waa xisaabtii algebraha weeyaan ku habsaan bayno marka A wax soo baxday ala kulli xaal inta soo baxday marka okay waana very important waa helaad garanaya very important weeyaan waa helaad garanaya okay now waxaan doonayaa si u fiirsalka halka u fiirso very important weeyaan si aanu beamkayga u dhaqaaqin waa in ay isleekaadaan labadan xoog waxaan haystaa saraan kale xoog baan haystaa sidoo kale xaggana waa compression kayga u fiirsalka xaggana waa steel kayga kana waxa weeye waa tension ki kana waxa weeye markaas maxay compression ki distance ka u dhaxaysan waa imisa waxa weeye markaas maxay D minus A2 okay waxaan haystaa soo waxaan haystaa compression xaggana waxaan haystaa maxay tension haystaa haddaba si aanu magaranaysaa sida reality-ga ama xaqiiqda waxa weeyaan
tensionkayga iyo compressionkaygu way isleeyihiin halkan compressionkayga iyo tensionkaygu way isleeyihiin haddaanay isleekaan haddii kani kan ka weynaado ama kani kan ka weynaado maxaa dhacaya waxaa dhacaya in uu beamkaygu saa u wareego mana wareegi karo macquul maaha waayo beamkaygu waa istaagay waa static weeyaan marka waxaan assume gareynayaa in compressionkayga iyo tensionkaygu ay same yihiin hadoo fiirso tensionkaygan iyo compressionkaygan ayaa same noqonaya haddaanay same noqon maxaa dhacaya in labada mid ahaani uu bato t ayaa waxay ii leeg tahay c okay hadday t aada c maga maxay noqonaysaa t maxaan haystaa t waxaan haystay intaan haystaa t oo ah area of steel oo lagu dhufto markaas maxay fy ayaan haystaa t c na maxaan haystaa c na waxaan haystaa 0. intaan haystaa c 0.85 fc ab baan haystaa okay maadaama intaan haysto waxaan raadinayaa marka maxay inay isku leekaadaan markaas maxay oo ay ii soo baxdo ii soo baxdo na marka maxay wata waani hore soo saaray waxaan u gudbaynaa marka in soo saarno Abdullahi kuro yahay mumadkii la weydiiyay okay maadaama hadaba xaggan iyo xaggani ay d minus a u dhaxayso kana uu c kana uu t yahay waxa ka dhalanaya markaas maxay mumad ka dhalanaya mumad maxaa lagu heli jiray mumad waxa lagu heli jiray fd force-kayga oo lagu dhufto markaas maxay distance-kayga okay labada force kala qaadan karaa kana waan qaadan karaa kolba ka jecel baan qaadanaya okay haddaan ka qaato muxuu noqonayaa markaas maxay distance-kaygu wuxuu noqonayaa xaggan ilaa iyo xaggan waana maxay ultimate moment-kii layna weydiiyay ultimate moment-kii layna weydiiyay ayaa wuxuu noqonayaa laga bilaabo xaggan ilaa iyo xagga ugu sareysa markaas maxay distance-ka marka waxa noqonaysaa markaas maxay wuxuu noqonayaa moment-kii layna wuxuu noqonayaa m waxa noqonaysaa m Abdullahi kuro yahay t iyo c kan doon qaadan karaa c doon qaadan karaa t doon qaadan laakiin waxaan qaadanayaa hayfud waxa weeyaan t da waayo t waxa kooban tahay kaliya ta laba maganas variable as iyo fy xagga kan ay kooban tahay fc b Abdullahi kuro xisaab fara badan marka ina soo qaado marka maxay force-kiina waa markaas maxay t oo lagu dhufto markaas maxay distance-ka waa maxay waa d minus a by 2 okay m waxa ila leegtahay markaas maxay t maxay leegtahay waxay leegtahay as fy oo lagu dhufto markaas maxay d minus a by 2 okay marka m waxa ay si leegtahay as maxay noqonaysaa marka area noqonaysaa area waxa weeyaan area uu leeyahay steel-kan waxaan isticmaalay steel-ka la dhaho number 11 baan isticmaalay okay marka steel-ka la dhaho number 11 area waa imisa xaggan soo eegay steel-ka la dhaho number 11 me waa kan area meeday waa 1.56 marka waxaan soo qaadanay 1.5 okay 1.5 okay waxaan soo qaatan 1.5 waxaan haystaa markaas maxay 1.5 baan haystaa laakiin 1.5 aan hayste imisa 1.5 baan haystaa maalay 3 grade marka waxaan noqonaysaa 3 times area 1.5 root 3 so waxaan haystaa halkan 3 lagu dhuftay 1.5 inch square waa area-daas oo lagu dhuftay fy na maxaan haystaa fy na waxaan haystaa 50 ksi waa markaas maxay 50 kib per square inch 50 kib per square inch baan haystaa okay maxaa kaloo laga doonayaa waxa kaloo laga doonayaa inta marka sameeyo d minus a by 2 d maxay soo baxday d waan iska haystay markii hore waxay ahayd d maxay 20 bay ahayd xaggan ilaa iyo xagga waa 20 bay ahayd okay so waxaan noqonaysaa 20 laga jaray allahumma salli Muhammad a by 2 a maxay noqonaysaa marka iyaduna soo saar already a maxay ahayd a waxay soo baxday 8.27 inch okay so haddeen dib u noqono markaas moment-keeni waxaan haysanay intan 3 times 1.5 inch square 50 kib per inch square 20 inch oo laga jiray maxay marka a marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 8.27 inch oo loo qeybiyo markaas maxay laba so m maxay noqonaysaa marka m waxay soo baxday 356.9.625 maxay kib inch waxaan doonayaa ka dhigo markaas maxay kib feet doonayaa ka dhigo so waxaan u qaybinayaa markaas maxay 12 baan u qaybinayaa so m ugu dambeyn waxay soo baxaysaa 29.7.46 kib foot intan macnaheedu waxay tahay moment-ka intaa leeg haddaan geliyo beamkaygu uu fail garoobaya ama si kale uu jabaya